يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. حديث القدس با إلهي كليها إن آدنو مربع داد أدقو أنيق آدي برييسو أودي رجينيسد أود وجه دولك إيديغيسد أودي برييسد دنبغا دونتد إن دنبغا آدقش إنتو دونا بحالك هذا وانكو دافا يا با إلهي عد أنو أبا يليون وجوسن يعني مجرت با إلهي عد أورانيسا يا ربي أدونكن waa dambiile maxaa dambigiisa u dhaaftay oranaysa ma jirto hadaad marba adigu aad muslim tahay oo muumin aad tahay oo ilaahay keligii aad baryaysid keligiina aad rajaynaysid dambiga ka dhaca intuu doonay hal leekaade hadaad ka soo noqoto dambiga oo shuruudii toobada laga helo ilaahay waxa ku leeyahay dambiga waan dhaafaya law balaqat dhunubuka anana as-samaa hadii dambigaagu uu gaadho fadka samada أود استغفار هذه قد طلبته وأن رافي با إلهي كيودي لو أتيتني مالك قيامها أرلد مجد وقف أدقو وتحداد إتمادو لكن بالشرط أن يقول تماد أدو يسو شريك يلين قفك الله تمد إلا أقود دمدافع كوري من با إلهي كيودي شرط ومحي وين أتى شخص موحد إله الرميسن بركة إله إن حريستي سكبوسا بينه ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنوا ويدنا حريصت إلهي حديث كوي الله صحيحين نبينا عليه الصلاة والسلام وحل الناس وقبنا يا أمته نجهر يقفك أي قلان إلهي نحريستي وسعد هذا يسوي النبي النوت المامية ayuu nabigu noogu sheegay ninkii reer bani Israa'iil ahaa boqolka naf gooyay ee weydiiyay dadka ku yiri war caalim nin caalima ii tilmaama markaas nin caalima markii dambe loo tilmaamay ninkii caalimka ayuu u yimid oo wuxuu ku yiri taayib baan ahay boqol nafna waan qaba dhiigoodiye toobad miyaan leeyahay ha toobad waad leedahay buu ku yiri toobad waad leedahay laakiin shuruud buu ku xidhaa waxa uu ku yiri شروطاس وشرع لمن قبلنا بعلماء ولادين وها شروطا كمدة توبدا إن لقى أقبله ما شنات جوته ومال ضد حنبا كنول أو دجال بدن أو دب بدن أو دقيقة دادية كب بدن أيا كنوله كده بحبور ضد كان يبدل كان كجور حاجة جور إيسا دول كاس ضد وناكسم باكنول ضد كإله إلا سو عابد بكويري مال ضد وناكسم كنول يهين تج oo irtixaalay markaa ninkii safarkii buu guda galay isagoo wali meeshii uu socdo u hijroonaya aanan gaarin ayay geeridiisii timiday naftii markay ka dhacday malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay malaa'ikatul raxma waxay leeyihiin adoonkan uu toobad keenayo ruuxdiisa anaka qabanayno qaadayna bay leeyihiin malaa'ikatul cadaabna waxay leeyihiin may adoonkan boqol naf buu qabaa waa dhagar qabe weeyaan cadaab baa loo qaadayaa keena markaas ilaahay soo diray malag suurad aadamiya loo soo yeelo lagu yiri arlada dambiga uu ku galay iyo arladu raba inuu u hijroodo mitri baa lagu yiri mitri taw xageega u bata dadkeega ku daraba lagu yiri markaas ilaahay tabaaraka wa taala wa aziz wa karim wa rahim wa rahman fi ba'd ar-riwayat waxa nabigu sheegay dhulku u socday baa ilaahay u waxyoodu ku yiri adoonkayga naar inuu iga gala ma jecliyo u dhawow baa ilaahay ku u dhawow انت الا باي ديراتي بو نبي يقول شبر دنا ملائكه نحريست الله ورغتو سداس وا دونكي نحريست الهي كو متيستي حديث كاس وحو نبي انه شيغ عليه الصلاه والسلام وا محي حقوسن ويا نحريست الهي كقوسن سو نقو ان تابوا الي فانا حبيبهم احب التوابين واحب المتطهرين وان لم يتوبوا الي فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب والمعائب لأظهرهم من الذنوب والمعائب إلهي بحديث القدس وحو كيري هدي أضومهيقو أنيقا إيسو نقدانا كسو نقدا كي جعل بانا هيبا إلهي كوا استهيريا يا طهارة قادنا يا الذنوب تسكن ميريا يا كوا إلهي أصو نقدا دنبك كتوبت كيني لبدا بوان جعل هيبا إلهي فإن لم يتوبوا إلي هدي أنيقا أضومهيقو إيسو نقني ويا وأي توبت كيني ويانا فأنا طبيبهم مديني
waan dawaysanayaa buu ilaahay addoonkayga oo maxaan ku dawaysan balaayo iyo masiibo ayaa ku keenaya si dunuubta iyo macaayibta iyo nuqsaantooda aan uga maydho ay u gartaan rabbi inay leeyihiin dadna u soo noqdaan baan u keenay balaayo baa ilaahay yidhi dalka innagu aan ka soo jeedno haddaan Soomaali nahay waxaad ogtihiin 5 sanaba masiibo magac kale huwan baa soo maraysa hadda maalmaha ay dhaweeto daadad baa qaado ummado dhan oo dal dhan baabiyey oo beero dhan baabiyey oo intaas oo bashar ay ku dhimatay oo intaas oo xoolana ay ku halaagsameen masiibo 5 sanaba masiibo magac kale la huwiyey ayaa ilaahay nagu soo diraya waa maxay waxa ubtalihim bil masaa'ib ilaahay baa inagu leh adoomahayga waan jecelahayo maadaama boqol muslimiin yihiin oo muwaxidiin ay yihiin waxaan balaayadii masiibada ugu keenaya wax kale ma aha dambigay galeen baa rabaa inay ka soo noqdaan baa ilaahay leeyahay laakiin dadkeenu wali ma toobadkeenin inaan toobadkeenin waxa uu daliila masiibadii waddanku ku burburay ilaa imika dhamacdeedii way taallaa qaarna way hurinayaan oo waxay ka huriyaan inta badan waxaan la yidhahdaa social media-ga ka hurinayaan waxyaabahaan doonayna inaan ka toobadkeena qabyaaladda ka mid ah haddaan qabyaaladda ka toobadkeenno albaabo badan oo inagu furan oo cuquuba ayaa ilaahay naga daboolaya waa inaan ka kacna qabyaaladda kor uga baxnaa oon u baxnaa alislaamiya annagu muslimiin baan nahay ilaahay dad muslimiin uu naga dhigay dal boqol muslim ilaahay nagu abuuray dal boqol dadka ku nool isku madhab yihiin baa ilaahay nagu abuuray dad qoys kaliya ilaahay naga dhigay waa inaan toobadkeena ummadda aan ugu yeedhnaa waa inaan ummadda toobadda ugu yeedhnaa tawba nabi huud calayhi salaam qoom caad baa loo diray reer caad waa qoomkee bay haayeen waa qoomkii yidhi man ashaddu minna quwa ayaa naga xoog badan bay yidhahdeen qowm caad ayaa naga xoog badan ilaahay quwad buu siiyey qoomka quwad ilmahooga 5 jirka bay culimmadu yidhaahdeen 5 jirka ayaa dooga beqlay tagaada sida ilmaheenu u rujiyo ugu ciyaaro ayaa geedka timirta ilmahooga 5 jirka intuu u qaado sida u tuuri jiray baa la yidhi hadduu ilmahooga 5 jirku intaan la ekaa kooga 30 jirku markaa intee buu la ekaa wayaddacuuna alquwa wayaquuluun man ashaddu minna quwa ayaa annaka naga xoog badan bay leeyihiin ayaa naga xoog weyn ولكن نبي هود عليه السلام مركو يمد وحو يري ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم التلك يو ولبا قبيل رير كيسا استغن الله دري قوم كيسا الله دري مركاسو كيري استغفروا ربكم ربكين دم داف ويديستا ثم توبوا إليه دنبقات كجرتانا كدح بحا وحق ربكين أصول نقضة هداد إلهي لبدا صفة هداد إلهي أصول نقطان هداد استغفار نتمادان قال لماذا أكسر دح بحدان ذنوبتا ووين دنبقا ووين وحوين الإشراك بالله وإلهي والله شريك يلو قال لماذا كجرتان يا وحي قال لماذا أي ولا توبنا كسر دح بحا أو توبت كينا محمد مركا هليسان يرسل السماء عليكم مدرارا إلهي السماء وحو نيغا كينا يا روب دبعي واوين با السماء الله نيغا كيني دول كان بركات نيغا سو سارايا ما انتا كليا مي ويزيدكم قوة إلى قوتكم أودا أتشيغانيسانا لا نيغا قادم مايو دين دي إسلامكو وحبكا قادم يسو وحيكو قدرتا موياني إسلام نمادو وعلى ذوق هايستد ويكو كردين قوة دي جركا عداد هايستان قوة دي عقلك الله ينيقو داري قوة دي علمك الله ينيقو داري قوة دي عافماتك الله ينيقو داري قوة دي ماركتان بركة عمرك اللي ينيقلين قوة دي إيمانك يا عقيدة إلهي ينيقو داري قوة دي عتشيغان إنسان دين إسلامكو إنك ما ناقوس يسو إنك ما ديبيسو بل قوة دي قوة كلاي دين إسلامكو ينيقو داري سا إسلام لماذا داد بدن بما تكبقايا هكبقين دين إسلامك waxay ku kordhisay mooyaan waxba ka dhimi mayso Adi ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu anhu saxaabiga la oran jiray
ayuu nebigu diinta islaamka uu bandhigay wuxuu arkay isagoo ka jejeesanaya markaa buu nebigu yidhi yaa Cadiy kaalay buu ku yidhi soo fadhiiso islaamnimadayda diinta ilaahay aniga ii soo dhiibay inaad igu soo raacdo ood islaamto saddex arrimood baa kaa hortaagan buu waana kuu sheegi buu ku yidhi dhegayso waa bil ikhtisaar saddex arrimood ayaa sabab u ah inaad diintayda aad ka istaagtoonad soo gelin arrinka koobaad waxaad isleedahay dadka nebi maxamed raacay calayhi salaatu wasalaam waa dadkii ducafada dadka ugu liitay ayaad isleedahay arrinka labaad waxaad arkaysaa asxaabtaydu inay yihiin dad fuqaraaya oo masaakiin oo awood aanan haysan dhaqaalena aanan haysan ta saddexaad waxaad arkaysaa nabad ma haystaan baad leedaho meel walba dagaal iyo maaragtaane colaad baa kaga soo socota laakiin Cadiy waxa uu nebigu yidhi saddex arrimood si fiican iga dhegayso waxaad isleedahay waa fuqaraa dhaqaale ma haystaan waxa iman doonta buu nebigu yidhi waxaa dhici doonta zakaatalmaalka marka la soo ururiyo qof miskiin oo baahanba in laga waayo wadannada islaamka oo dhan